منصور بن عمار يا وحو ليهي وحا جري صديق أما نين صاحبه وأنو أن ليهي نين كاسو أن نين مصرف على نفسه ثم تاب نفتي سنين وحد قدبي وددك دنوب تبضان أهائي معاصرة كدبنا وطوبت كيني الله سبحانه وتعالى با يا قفك إساقا كهديي أو تصي إنو حلقا طوبت كينو وسيدي إنو موقتي وي سيدي ددك لجوغي موقتي وكور رمي منصور بن عمار وحوري ننكاس وحوها نن عبادة بدن وحوها نن هبينكي إلهي استاغا سيدا نو موقتا وحوها نن صوم بدن وحان أركي جري إساغو تهجد هبينكي وتاغن وحان واي بوري مركب مالما أيام واي وحالي ويري ننكي واجرين يهي أو مريض وحان إمد قريقيسا منصور با ورميا waxaa ii soo baxday buuri gabar uu dhalay waxay tiri xageed u socotaa oo maxaad rabtaa waxaan ku yiri waxaad ku tiraahdaa aabbaha fulaanun yastaadinak inkii hebel ahaa mansuur yaa idanku weydiisanaya inuu kuu soo galo way u sheegtay waana loo cadmay oo waa loo oggolaaday inuu soo galo markaan soo galay wuxuu yidhi waxaan helay isagoo wasti daarta dhexda guriga dhexdiisa isagoo jiifa ayaan imi firaashkiisii iyo gogoshiisii ku jiifa isagoo oo wejigiisu u madoobaaday isagoo indhihiisu ay ilmaynayaan isagoo bishimihiisii ay qallaleen waa qof jirranood garanayso waxaan ku yidhi faqultu lahu yaa akhii أكثر من قول لا إله إلا الله ولالك يو وحاد بدسا كلمة لا إله إلا الله كلمة عربك يوكو بدي ففتح عينيه إلي بشدة ثم غشيا علي منصور هالمر أيو عندها كالقاضي مركان ساكو يري حدنا ولمير الضبولي فكررتها عليه 3 صدح جربا كعليي أن لها قل لا إله إلا الله كلمة ذاته وحجر ننكي واهضي فقال يا أخي منصور ولالكي منصورو هذه كلمة وقد حيل بيني وبينها كلمة أن الله لا إله إلا الله له وكلمة أنيقا إيادا نلكا دحقلي وآنا به كرينين فقلت وحان ربر منصور لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم قلت له وحان كوري يا أخي ولالك يو أين تلك الصلاة والصيام والتهجد والقيام أوي صلاة دي بدنيد أن كو أركي جري أوي صوم كي أن كو أركي جري أوي قيام كي تهجد كي هبين كي هدستاقي جرتين أركي جري فقال وحولي وانكي جرنا كان ذلك لغير الله انت أذركي سيوردن إلهي درتي ماهين لغير الله إذن الله أهين بان أسميناي وكانت توبتي كاذبة وحيل التوبة كان كيغنا بينبوها إنما كنت أفعل ذلك ليقال عني وحان أرمها أسميني سلو يراد هبل وافي عن يهي وكنت أفعل ذلك رياء للناس وحان أرمها أسميني سيان ضدك يسطسه أيو يري فإذا خلوت إلى نفسي وأغلقت الأبواب وأرخيت السطور شربت الخمور وبارزت ربي بالمعاصي مركان وحيري أن كليغي نقضه الباب بدا قريغان حرنجري داهنا أيوم ماركتي الباب كوان سوع شنجري
khamrada ayaan cabbi jiruu yidhi allah ayaanan macaasi waxba ka qarsan jirin oo wax kastoo macsiya baan la imaan jiray wadumtu calaa daalika mudda sidaasaan ku jiray buu yidhi muddo dheer fa asaabanii almaradu jiraa marka igu dhacday wa ashraftu cala alhalaag waxaan u dhowaaday buu yidhi inaan halaagsamo oon dhinto faqultu libnatii haadihi naawiliinii almusxaf gabadhaydan hadda albaabka kaa furtay ayaa waxaan ku idhi aabbo markaan arka anigu inaan tacbaanahay ii keen musxafka kitaabka qur'aanka way ii keentay waxaan idhi allaahumma bixaqi kalaamika fii haada almusxaf allahayow waxaan kugu weyddiisan kalaamkaaga casiiska ah qur'aanka musxafkan ku yaalla haddii aad i caafido dhibaatada i haysata iga dulqaaddo wa ana ucaahiduka anlaa acuuda ilaa denbin abadaa waxaan ballan kugula gel inaanan u noqonaynin dembi dambe fafaraja allaahu cannii wuxuu yidhi marka ilaahay baa iga fayday cudurkii markaan caafimaaday cudtu ilaa maa kuntu calayhi ayaa waxaan u laabtay buuhi haddana wixii aan ku jiray oo min allahwi walladaat xumaantii aan ku jiray ayaan haddana gadaal ugu noqday wa ansaanii ashayطaan alcahda aladii baynii wa bayna rabbii shayطaankuna wuxuu ilowsiiyey buu yidhi ballankii anigii iyo allaah noo dhexeeyey waxaan ku jiray haddana sidaa muddo haddana waan xanuunsaday mar kale oo waxaan u dhowaaday cala alhalaaki waalmowt geeri iyo dhimasho ayaan u dhowaaday wa amartu ahlii fa akhrajuunii ilaa wasti iddaar haddana reerkaygaan amray buu yidhi waxay ii soo saareen guriga dhexdiisa sidii hadda ka hor baa caadadaydu ahayd waxaan u yeedhay musxafkii waxaan aqriyey qur'aankii ka dibna kor baan u qaaday ka dibna waxaan idhi allaahumma bixurmati maa fii haada almusxaf alkariim min kalaamik allahayow xurmada kitaabkaaga qur'aanka kalaamkaaga musxafkan ku yaalla ayaan kugu weyddiistay inaad iga fayddo dhibka i hayeen helaayo oo dhibaatadanna aad iga kor qaaddo faistajaaba allaahu minnii ilaahay wuu iiga ajiibay buuhi waa i yeelay waana iga kor qaaday dhibaatadii i haysay maxaa ka dembeeya uma maadaa bacda haada uma cudtu ilaa maa kuntu calayhi min allahwi waadiyaa haddana waxaan ku laabtay buu yidhi wixii aan ku jiray oo dhibaato ahaa oo dembi ahaa waxaan halmaamay cahdigii iyo ballantii alla aan la galay haddana waxaa igu dhacay buu yidhi fawaqactu fii haada almarad aladii taraanii fiihi jirradan hadda aad u jeeddo mansuurow waa markii saddexaad oo markaa igu dhacdo waxaan amray gabadhay reerkaygii inay guriga dhexdiisa ii soo saaraan oo qolka layga soo bixiyo sidii caadadaydu ahayd buu yidhi waxaan u yeedhay musxafkii qur'aankii kitaabkii sidii caadadiisuba hore u ahayd uu u yeedhay ii keena odhan jiray si aan u aqriyo maxaa dhacay markii saddexaad marka falam yatabayan lii xarfun waaxidun minhu hal xaraf oo kitaabkii qur'aankaa ka mida waa aqrin kari waaye waa ii muuqan waaye waan arki waaye waan aqrin kari waaye facalimtu anna allaha subxaanahu qad qadiba calay waxaan ogaaday buuhi marka alla inuu ii cadhooday farafactu ra'sii ila asamaa markaasaan kor madaxayga u qaaday waxaana idhi allihii samaawaadka iyo ardada abuurayow ilaahayow iga fayd dhibaatada aan helaayo waxaan maqlay buuhi marka ka'anna haatifka waxaa laydhaha waxyaabaha qayliya wuxuu yahay aadan garanaynin wax dhawaaqayoo dhahaya tatuubu can idunuubi idaa maridta wa tarjicu lidunuubi idaa bari'ta fakam min kurbatin najaaka minha wa kam kashafa albalaa'a ida btuliita
أما تخشى بأن تأتي المنايا وأنت على الخطايا قد لهوت قبيقا أما الشعر كوح أقرنا يان مقليب ومعنيه سوامحي تتوب عن الذنوب إذا مرضت مركا جرتو أيا دنبك كتوبت كيني وترجع للذنوب إذا بريت حدنا دنبكي بالغلابا مركا العافمات فكم من كربة نجاك منها ميقو كربو يردباتو يشدكو ساريد بو إلهي كافيدي وكم كشف البلاء إذا ابتليت ميقا بلاء يجركو هيسين الله كاقاضي أما تخشى بأن تأتي المنايا ورنيهم ميادا كبقيني جيرين يكوتي ماتو وأنت على الخطايا قد لهوت أذيقو أو كجراء أو لهوغا يلعبك آد كدح جرتو ذنوبتا يا خطايا قففكي أذيقو معاصدي كدح جرينا لما تكيابي ميسد مياه قال منصور بن عمار راوي القصة نينكي قصة ورينايي أيا وحوري فوالله ما خرجت من عنده إلا وعيني تسكب العبرات الله نكون دارتي نينكا كما آنم بحين مر هدي قرآن كي إساقي اللي سدي دي وان كعي أنيقو وحوري اللي انتو إيقا سعود فما وصلت الباب إلا وقيل لي إنه قد مات الباب كبوريغا هدان سيم مريو وحان مقليبو لنينكي واردنتي وقيريودي وحيل بينهم وبين ما يشتهون يجي وحي جعلايين نينكايا انت لميدا وحي جعليهين لغو سمي مايو والا كلا دحقل إلهي با أديدي بلانتا وكغبحي انتاسو جير إنو الله توبة وافجيو الهداية والتوبة إنو وافجيو ربي واك أديدي سبحانه وتعالى هذا بقى إخواني درسي وين بانو وجرة التوبة ليست نطقا باللسان توبة معها عرب كأول لغو دواقة كلية إنما هي ندم بالقلب وعزم على عدم العودة إلى الماضي المرير توبة وحوية قلبك أول لغن الندام وضو حسرة إيا عاد كدر انتو الندام إيا شليتو إيو عزمي إيا قوان إناد كوغاردو إناد الدب ونقونينين انت آذن أرك قبل وأن تكون قبل معاينة أمور الآخرة أموره آخره في فاله هذه انت هذا باللابن بمعنى انت هذا أرك نفط إني كاسو عطو قرقردي كقبتي كهر وإني تاي توبض هذا بي إخواني ضد بدن أو بدن أيو حاجرين إلهي بلن لقلان إلهي سبحانه وتعالى أي دنبي أي كجران أي كلاب اللمان هذا الله صاييش هذا نكون نقناي هذا جدا إن الله سبحانه وتعالى أوضه إنه سنكو وافجي النبا هداية يسوى نقشد هذا بمحاد سوي إن توبة هذا كسوقنا وطنينكاس هل كاس أمورتي سكو رماتي وأنا لك الرح قلي إساقية توبة ديسي ولو ديدي إنو توبت كان